wuxuu ogaaday inuu coronavirus dilaacay wuxuuna damcay inuu caalamka ka badbaadiyo balse Jayna waa u diiday inuu hadlo waa ayna u hanjabtay haddase xagee ku dambeeyay isagii Li William G waxa uu ahaa dhakhtar indhaha ku takhasusay oo ka howlgalay isbitaal ku yaala magaaladii uu fayrasku ka dilaacay ee Wuhan waxa uuna ahaa qofkii u horeeyay ee ogaaday inuu fayraskan dilaaga ah wadanka ka dilaacay isagoo oo dad badan uga digay ninkani ayaa sheekadiisu waxa ay soo bilaabatay maalin kamid ah bishii December ee sanadkii hore markii uu la kulmay 7 qof oo bukaan ah kuwaasi oo ka muuqatay calaamado eeg fayraskii khatarta ahaa ee SARS kaasoo sanadkii 2003 ku faafay wadanka Jaynaha dad badan laayay Li waa uu shakiyay waxa uu ogaaday qayb kamid ah fayraskii SARS inuu magaalada ku jiro hadii laga hortagi waayana uu wadanka haligi doono si degdeg ah ayuu asxaabtiisii fariimo ugu daray uu sheegay in fayraskan ay ka digtoonaadaan wuxuuna uga digay inaysan tagin suuqa lagu iibiyo hilibka badda ee Wuhan maxaa yeelay wuxuu rumaysnaa in cudurku meeshaas ka soo bilaabmay wuxuuna ku wargeliyay inay ku xirtaan afka iyo sanka oo maskaraati si ay cudurkan iskaga ilaaliyaan warkii ayaa si degdeg ah u faafay shaqaalihii isbitaalka oo dhan iyo madaxdii wadankaba xaaladii ayaa adkaatay dadka qaarna cabsi ayay dareemeen Li booliska ayaa u yeeray ayagoona u digay una sheegay inuu cudurkan aan jirin uu dadka ku cabsi gelinayo joojiyo mar kale ayaa eedeyntii hore la xidhiidha loo soo jeediyay taasoo ahayd inuu warar been faafinayay uuna jabiyay nidaamkii iyo xeerarkii wadanka u degsanaa markanna waa loo digay waxaana loo sheegay hadii uu aamis waayo inuu xabsi gali doono waxaana lagu khasbay inuu waraaqo cadeemo ah qoro kuwaas uu ka cadeynayo inuu isagu warar been faafinayay sharcigana ku xadgudbay Li isaga oo niyad jabsan ayuu isbitaalkii ku soo laabtay si uu shaqadiisa iskaga sii wato maalmo kadibna qandho xun ayaa qabatay wuxuuna bilaabay qufac xaaladiisina way ka dartay waxaana loo gudbiyay xarunta daryeelka cudurrada guud waxaana soo badanayay maalin walba dad xanuunkiisa kala qaba Jayna waxa ay bilaabeen inay raadiyaan cudurkan wuxuu yahay balse waxa ay soo ogaadeen inuu dilaacay fayras khatar ah oo lagu magacaabo corona sidoo kalena waxa la ogaaday cudurka meeshu ka soo bilaabmay inay tahay suuqa xayawaanada badda ee magaalada Wuhan waana sidii markii hore uu sheegay dhakhtarkii balse cidna aysan dhig jala qusin Li wax badan ayuu isbitaalka yaalay oo laga daweynayay saameynta uu geystay coronavirusku balse nasiib xumo cid badbaadin karta waa la waayay suuxii jimcada ahayd ayuuna u dhintay xanuunkii oo in badan ka digayay aad ay ugu xumaadeen takhaatiirtii Jaynuhu si carar leh ayayna uga falceliyeen iyagoona shabakadii isgaarsiinta iyo dawladdu ku eedeeyay inuu cudurka qariyeen oo dheelsadeen ayagoon wax ka hayn waxay kaloo cambaarayeen maqnaanshiyaha xorriyadda hadalka inuusan qof wadanka jooga aragtidiisa cabiri karin qodobkaas oo kor istaagay Dr. Li inuu caalamka badbaadiyo looguna jawaabay hanjabaad dadka Jaynuhu aad ay ugu xumaadeen farkii lagu kacay doctorka waxayna ku sifeeyeen Li inuu ahaa haliyay hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa Shiinuhuna waxa ay sheegtay inay furi doonto baaris dhameystiran oo la xidhiidha wixii ku dhacay Dr. Li daawada aragtidaada nala wadaag Shiinuhu miyuu dayacay waajibkii saarnaa ee ahaa inuu ka hortago oo la tacaalo fayraska bilowgiisii